badankeen waxaan isku raacnaa in sanka oo farta la geliyaa ay tahay ficil aan wanaagsanayn hubaalna waxa ah in sankaada oo aad wax ka soo bixiso deetna aad cunto ay tahay wax lagu lalaboodo oo aad u falxun sidaas daraadeed ayay hooyooyinka ubadkooda u sheegaan in aysan ficilkaasi samaynin laakiin badankoodu waa ay sameeyaan haddii aysan dadka hortooda ku samaynin marka ay kaligood yihiin ayay sameeyaan waxaa la yaab ah baaritaan ay sameeyeen koox reer British ah in ay ku dhiirigelinayaan carruurta in ay cunaan tuxabta sankooda ku jirta waxa ay sheegeen baaritaankan ay ku cadeeyeen in tuxabta sanka ku jirta ay ku dheehan tahay waxyaabo badan oo caafimaad ka faa'iido u leh waxyaalahaas ugu muhiimsan waxay kor u qaadaan koritaanka carruurta sidoo kalena waxay carruurta ka ilaaliyaan caabuqa iyo sidoo kale cudurka xiiqdheerta waxa ay sidoo kale warbixintan ku sheegeen in ay ka ilaaliso hoos u dhac ku imaan kara difaaca jirkooda sidoo kale waxaa ku jira borotiin ka hor imaanaya bakteeriyada sababta suuska ilkaha sida ay soo sheegeen Kidsbot waxa ayna khubaradana baaritaankan ku sheegeen in dadka cuna tuxabtaasi ay habdhiska neefmarooyinkoodu aad u fiican yahay sidoo kalena ay aad uga farxad badan yihiin dadka caadiga ah intaasi waxa saa'id ku ah cunitaanka tuxabta qalalan in ay u fiican tahay difaaca jirka intaas waxa kale oo dheeraad ah in sanku uu yahay meesha filter gareysa ama kala saarta bakteeriyada badan haddii uu qof cuno tuxabtiisa marka ay calooshiisa aado waxay noqonaysaa daweyn oo kale waxa ayna noqonaysaa in qofku uu cuno dawo oo kale sida lagu sheegay warbixintan waxaana mudan in la sheego in ay keeni karto dhiigga sanka ka yimaado ay sabab u tahay in sanka uu ku jiro 5 xidid oo yaryar kuwaas oo si xooga u dhaxmaro dhiigga waxayna sababi kartaa dhiig baxaasi in bakteeriyada ay ku faafto taas oo la sheegay in ay keeni doonto caabuq fara badan